habeenkii dambe waxaan qabay rasaas ka dhacaysa magaaladii aan ku xidhay herer magaalada meel koo dhan aan ku xidhanahay waxaan la hadlay ninkii meesha haystay waxaan waa maxay badaafiic la dhacaysa wuxuu yiri waa ciidii islaamka waa ramadaan baa dhamaatay marka waa loo dabaldegayaa dawladda urtaysa badaafiicda waxaan ilaahay iga yeelsiiyay waxaanu nahay muslim inaanu tukanaanu doonaynaa ee ma nooga shahay maxaan idinka helayaa buu ilaahay baan ku baryaynaa inuu jannadii ku geeyaan janno ma baahniya waxaan ma helayaa buu ilaahay ii weydiinaysaa darajo inaan helo haa baan idhi oo kuma qayaa buu yidhi haa baan masaxaysaa buu yidhi haddii la waayo dhibaatada ku hesha haa baan idhi ilaah baa iga hadlinaya wuu iga saxeexay dabeedna wuxuu yidhi soo baxa 17 wuxuu yidhi baydha markuu baayooyinka geeyay meel ay ku baydhaan iska toodo aan meedhanay ayuu ciidankii yidhi ha tukadeena idinku ilaaliya ciidankii kale oo ilaalinaya ayaa waxaanu aragnay raggii kale oo ka furay albaabkii oo yara meedhanaya uu noo yimid wuxuu yidhi caliyow nimanka saaxiibadiina lama ogola inay is aragtaan laakiin way idinla tukanayaan wax wada hadal ma jirayaan gadaal bay marayaan xagga dambe safka dambe idina xagga horaad maraysaan wada tukada mana wada hadli kartaan way heebaan 17 nin baan wariyahay inay tujinayo salaada inaga saaraya anagu markaa u diyaara inaan tukano anagu wayga fursad weyday markaan ahayn 17 nin arigii baa waxaan u diyaar garoobay inaan tujiyo anagu wadaadkii tujinayay 16 kalena fadhiyaan safkii hore ayay nimankii soo wareegeen ilmaba eegi kareen markuu gadaal mareen ayaa nimankii kale istaageen salaadii baa markaa sii bilaaba halkii ay salaadu ka bilaabmay lahayd baa markaa nawatu u salli marayay yaa go'aan gaadho waxaan wariyahay iswaraysta dinu soo qodobtay mooyaan jaanis kan iswaraysta salaada halka markay maraysay baa nawatu salli ragcatayn ciid al-fajr mu'akkadati warwaxanu nahay anagu 17 mu'akkadati ma'muman intaasi waxa weeye ururka waa guutada waa urinta intaasina waa guutada waa ururka waa urinta intaasina waa saaq intaasina waa darood intaasina waxa weeye Allahu akbar nimankii Allah salaadu bari qabsa Allahu akbar bayraa sidii aan ugu tujinayay waan ku tabakeeyeen warbixintoodii aan dhameeyay anoo ku dhameeyay markaa salaada matalaada markii aan dhameeyay nimankii go'aan islamaan ogeyn ismana gaari karee ayaa waxaan u fikiray sidii aan u heli lahayn nimankan kale warkooda dabadna waan helay yadoo waxaan bismillaahir rahmaanir rahiim iqra bismi rabbikal ladii khalaqal insaana min 'alaq wa nin walba markaas suusan tahay ninka ka horeeya warbixintaada u soo dhiib Allahu akbar dabad sujuudi baa ku raajay nin waliba ninkii ku aadanaa ayuu warbixinta halka ku siiyay markaan warbixintii kala qaadanay kala dhamaysanay ilaa sunniyo faratoona kala garan maayo ninka nimankan Itoobiyaankiye ee ay duhur marayso aanu warkii kala dhamaysanay yaanu salaadii sidii wax ka baxay aanu ka baxna markaanu ka baxnay bi waxa ku jira nin af xabashiga yaqaana qoladan dambe dabadii buu taago wuxuu Maxamed Istargaami iga turjubaan ali waxta salaadu waa tukateen waana u balanay darajadii hadii aan waayo wixii dhacaarigu shaqo ku bari waxa ilaahay geersiyo bil faatixada imara in ilaahay iga soo asturo uu kala xareeyay habeenkaana oo isla fiidka lagu baxaya ayuu markuu tagay loo xadriyay dadku markaa waxaan u sheegayaa markuu isku calool yahay ee islaam yahay walaala yahay dibba yahay in laga aqbalayo wax ilaahay wadiistaa waanu u aragno waanu aragna fiidka anigoo soo kula baxaya buu yimi isagoo furin ama dhaabo jawaana sida istisgaa ali markaasuu yidhi daaqada fura daaqadu furay ilaahay iyo sabal wa saaxiib